shirka caalamiga ee culimada suufiyada oo markii ugu horeysay lagu qabtay Soomaaliya ayaa culimada ka qayb galay shirkaasi waxa xalay casharaf u sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriisow. culimada ka qayb galay waxay ka kala socdeen wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Turkiga, Masar, Suudaan, Algeria, Iraq, Morocco, Lubnaan, Urdun, Nigeria, Britain, Senegal iyo Djibouti. waxaana ka qayb galay casharaftaasi xiraalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Cabduqaadir Macalin Nuur iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi lagu casuumay. wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Cabduqaadir Macalin Nuur oo munaasabada hadalka jeediyay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xiligaani wax khilaafaad ah aysan ka dhaxinin culimada Soomaaliyeed, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in xiligaani la isku haleyn karo amniga wadanka Soomaaliya shir noocan oo kala caalami ah ay ka dhici karaan. midig iyo bidix aan nahay kalama maarano culimada Soomaaliyeed, meel kasto iyo fikir kasto ay ka soo jeedaan. cadawgeena waa kuwaas wax dilaa oo qarxinayo, inteena kalena waa midaysana. sidaas daraadeed waxaa noo suurta gashay in hadda sidii uu sheegay muddaci caamka hawada annagoon dhib jirin waxba maqlayn xabado saas aan ugu noolahay Muqdisho ayadoo la joogo saqdi dhexe. alxamdulilah thumma alxamdulilah. xiraalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waxa uu ka dhawaajiyay in la isku haleyn karo amniga Soomaaliya, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay asaga in Quraanka Kariimka uu ku bartay Mawlaca Macalin Nuur. Wallahi waxaan ogahay inay culimo badan oo ka soo qayb galeen mu'tamarka ay u baaqdeen fikir khalad ah oo runtii wadanka laga faafiyay. waxaan maleeyaa inay noqon doontaan rasuul sheega reality-ga iyo wadciga Soomaaliya ka jira ee amni istiqraar ama oran karo law and order-ka ama aan oran karo wax kasta oo dowladnimo iyo looga baahnaa. waad aragtaan mid ka mid ah culimadii ka socotay wadankaas Ciraaq ayaa ka mahadceliyay casharafta uu sameeyay maamulka gobolka Banaadir. ثم الشكر بالكلمة الثانية إلى الإخوة والأخوات في الإعلام الصومالي الذين نقلوا وقائع وأحداث هذا المؤتمر وهذا الملتقى العلمي الروحي الكبير إلى العالم في فضاء واسع حتى بتنا نسمع أخبارنا من الشرق والغرب. فلكم جميعا كل الشكر والتقدير والامتنان. نحن نشكركم أنكم شرفتمونا بهذه الدعوة، ونحن نحمد الله عز وجل أننا لبينا هذه الدعوة. ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay munaasabada casharafta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay inay farxad gelinayso in shir heer caalami ah lagu qabto magaalada Muqdisho, wuxuuna tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in shirarka ceenkan oo kala uu sii wadi doono. waxaa muuqata inay yihiin dadka ugu fiican adduunka. culimada hadashay ee dibadaha ka yimidna waa ay qareen sida ardaydii ama muxuu ahaa wax baranaysay iyo sida quraanka u xafideen iyagoon luqadii carabiga aqoonin. taasna runtii Dr. Anis arintu aad uga hadlayna waa arin ahmiyadeeda leh. munaasabadu markay soo dhamaatay awaalmarin iyo shahaadooyin kala duwan waxaa la gudoonsiiyay culimadii ka qayb gashay shirkaasi. Cabdiraxmaan Waabri, Som News, Muqdisho.